markana bari oo sabti ah waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xaaladda autism-ka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka WHO qiyaas ahaan mid ka mid ah 160 caruur ee adduunka ku nool ayaa qaba xaaladaasi dalkana UK-na waxaa lagu qiyaasaa kumayaal. Axmed Xaaji ayaa inoo haya. wuxuu jecel yahay inuu basaska ka daawado tabletkiisa uuna xifdiyo lambarada taargadooda balse hadalka ayaa dhib ku ah wixii uu doono wuxuu ku sheegtaa qoraal uu ku qorayo tabletka uu haysto sidoo kale wuxuu ku adkaystaa qorshayaashiisa maanta waxa uu diiday inuu bannaanka u baxo maadaama uusan horey u qorshaysanin Ismaaciil waa 22 sano jir degan guri ay dawladda siisa oo ku yaala magaalada Leicester waxa xaaladan lagu arkay isagoo 2 sano jir ah ma fahansanin ilaa iyo xadka iyo waxa uu yahay horta autism sababtoo ah Ismaaciil wuxuu ahaa curadkaygii nolosheedana maan arkin qof autistic ah ama autism la nool ilaa iyo habeenada kamid ah TV-ga oo daawanaya ayaan waxaan arkay nin dhakhtar ah oo ka hadlaya autism markaas ayaan fahmay ilaa iyo heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda wiilkayga lagu sheegay iyo sida uu adag tahay waxaan xasuustaa habeenkaas inaan waqti fara badan aan ooynayay waxaan dareemay inaan aniga u ahay sabab balse caqabadaha ay wajahday hooyadii aad ayay u badnaayeen sida in magacyo kala duwan loogu yeero waxyaabaha kamid ah waxay tahay Ismaaciil waa la ilaastay ila ku dhacday marka maadaama il ku dhacday quraan saar swaalid sixir oo macnaha sixir adil lagu wada ayaa Ismaaciil ku dhacay marka sixirkii waa in la baabi'iyaa which is saas ma aha waxa kale oo liigu wici jiray gabadha haysato wiilka xanuunsan magaceygii dhamaa oo saamiye ahaa uu baaba'ay wuxuu isku bedelay gabadha wiilka xanuunsan haysato sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay 160 caruur ahba mid ayaa qaba autism waa xog kooban waxaana jiro cilmi baarayaal kale oo tirada intaa ka badinaya dalalka saboolka ah iyo kuwa dhaqaalahooda uu soo korayo sida Soomaaliya lagama hayo xog dhameystiran sidoo kale xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee Mareykanka ee CDC waxa ay sheegtay in 100% hal qof oo ka mid ah dunida oo dhan uu qabo autism taasoo micnaheedu uu yahay in 75 milyan oo qof ay la nool yihiin xaaladan dhanka UK ilaa 700 kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa kuwa la nool autism sidoo kale 100 caruur ahbana mid ayaa qabo autismka haddaba sidee loola macaamilaa dadkan love jacayl iyo aqbalaad waxaan ahay waalid haysta gabadh autistic ah waan diidi jiray xaaladaas waana arrin dib u dhac ii keentay muddo sannado ah hadda gabadhayda waan jeclahay shaqadaydana way tahay waxa ugu horeeya waa in cunugaada aad ku qaadato wax kasta uu yahay iyo in aad hesho caawinta saxda ah si ka duwan dadka qaba autism ee ku nool Soomaaliya kuwa kale ee dalalka reer galbeedka sida Ismaaciil waxa ay helaan daryeelka ay u baahan yihiin waxayna haystaan fursado Ismaaciil heerka uu gaarsiisay waxay tahay inuu leeyahay isku filnaansho buuxdo ha noqoto xagga nafsadiisa inuu nadiifsan karo cuntadiisa samaysan karo markii laga reebo inuu kariyo laakiin uu baahan yahay caawin in la kariyo inuu maanta samaysan karo list uu u baahan yahay waxa uu u baahan yahay inuu soo iibsado uu dooran karo meeshuu rabo baahidiisa haba yaraatee kelmadaha uu kusoo gudbinayo maanta baahidiisa noo soo gudbin karo rabitaankiisa noo soo gudbin karo alxamdulillaah 10 sano ee la soo dhaafay horumar ballaaran ayaa dhanka wacyigelinta laga sameeyay waxaana korodhay tirada la geeyay goobaha waxbarashada Axmed Xaaji Xasan BBC Leicester waatahay markana waxa igu soo biiray Hashim Ducaale Hashim waad ka shaqaysaa xaaladda caruurtan inankan ku daawanayna warbixintana waa kaagi marka bal waxaad nooga warantaa caqabadaha aad la kulanto adoo kaashanaya aqoontaada iyo wixii aad samaysay waa mahadsantahay runtii caqabadaha ugu badan waxay ka yimaadaan dhanka bulshada siday xaaskayga saamiye ay ka sheegaysay laakiinse dhibka ugu weyn maaha arintaas waxaa arintu tahay inay waalidkii la faquuqay ay dareemaan culayskaas dartiisna ay caruurtii ay ku hayaan guryihii ay caruurtii aanay bannaanka tusin ay caruurtii ka lumiyaan waqtigii ay wax ku baran lahaayeen taas waxay keenaysaa marka dib u dhac ku yimaada caruurtii oo aanay waalidkii aysan siin wixii loogu talagalay annagoo joogna wadamo ay muhiim tahay wax walbana laga heli karo in waqti dad baa ku caayaya darteed aad caruurtaadii aad guryaha ugu hayso waa tahay Hashim faquuqaas iyo aflagaadadaas aad sheegtay
see markaad xayndaabkaas looga gudbi karaa wax looga qaban karaa kuwa badan ay haysata arrintaas xayndaabka waxaa looga gudbi karaa inuu waalidku fahmo in caruurtan uu ilaahay siiyey iyakuna ay yihiin dadkii ugu muhiimsanaa oo ay iyaku saaran tahay mas-uuliyaddaas oo ay iska daayaan waxay leeyihiin muhiimka ma aha inaan waalidkii cabaaraynayno waalidku waxaa ka saaray culays ka weyn bulshadii marka waxaan hadda ka faa'iideysan fursadan aan leeyahay bulshaday maxaa dadkan aad culayska u saaraysaan ilaah baa qof walba sidoo yahay u sameeyay intaad caawin lahaydeen waalidkii oo dhahlaydeen maanta culays badan baa jira waxaan kaaga sheekayn 24 saac waa shaqo joogto ah markii cunugaada uu yahay cunug baahiyaha gaarka qaba marka intii ku imaan lahaayeen dariskii ay ku dhihi lahaayeen maanta waa daasheen annaga idinka nasinayna inay dhalacayn iyo dadkii ay aflagaado dadkii u geystaan waa waxa aan leeyahay maanta aan halkan u soo istaagay inaan ka waaniyo bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa tahay adiga waxaad haysataa fursado wadankan aad joogtaa bal ka waran dadka dalkii jooga ee aan waxaan u dhan haysan maxaad dhihi leedahay Hashim oo aqoon oo u leedahay waxaan dhihi lahaa runtii kow in ay iyagu ay ka bilaabaan inay isgarabsadaan waa iyaka hal qoysa inay horta soo taageeraan kadibna wax allaale wixii aan ku taageeri karno haddaan dibadda joogno waan taageeraynaa waxaa ka mid ah annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan weekend inaan u aruurino iskuul ku yaala Hargeysa oo ubad gargaar la yiraahdo oo gaarigii ka jabay oo ahayd in ay gawaarida ay ku soo qaadaan caruurta xitaa caruurta looma ogola inay raacaan transportationka caadiga ama gawaarida basaska oo ay markay buuqaan caruurtii baahiyaha gaarka qabay laga dejinayo waalidkii caruurtiiba ubad gargaar marka waxay samaysaa iyadoo aan lacag ka qaadan dadka ugu liita bulshada Hargeysa ayay caawiyaan taasna aan u kacnay ay tahay marka istaageeridda halkaas aan ka galay sheekada istaageeridda waalidiinta degan wadamadan reer galbeedka iyo kuwa Soomaaliya jooga markay isku xirmaan wax badan baa la bedeli karaa waxa kale oo la bedeli karaa wacyigelin dheeraad markii lagu sameeyo bulshada siday u fuquuqaan dadka baahiyaha gaarka qaba aad baad u mahadsan tahay Hashim Ducaale arrimahaasna waad u ololeysaa Allah kula garab galo